هذا نقدر رواية يرى براريغا وقالوا رواية يرى براريغا نقدر وصف فشلتين وديبة تكن كلا ديجان كديجان وديبة نيو وصف فشلتين يا هن اللي قد أيو رواية يرى براريغا صاحبيا مكوحويان ديجان كحرية القول وحلا إلى مترو وحلا إلى هذا برواقة صورا مترو dadkii gaaja dhexdooda wada xidhan yihiin miisaaniyadoodii iyo xoolahoodiina waa la cunayaa in uun baana shalayna xukuumaddii cabdi reerkoodu nooleeyey unbaa la hayay maantana in cabjade reerkoodii uu nooleeyey adar maxaa been laysku sheegi shalayna way jirta maantana way jirtaa maxaa been laysku sheegi ya haddii run la sheegayo dhallinyarada bilaa camalka waa kaa qaada nimcoy dhallinyarada bilaa camalka ee jigjiga بلا عمل كعبة دتكود الشعب كود ونحي لها وكاغا ولا وكاغا وما تصدق وقصدي مركا بين أدر يا الله شيء الشعب كديجان كسومالي كالبيت مساكين تاع حولهودي ميزانية دودي لعونيو بيلعان تقول دمانيا ما تغنى حولي كتر بابين يوقعشوا ولا لنتي BBC dadka BBC ka hadlayay gaajada u dhinto ninka Ahmed Yaasiin la yiraahdo kursigiisa ilaashanay uu leeyahay oo mayna dhimanin mid kale maxaa loo raadsanay madaxweynayaashii deegaanka soo xukumi jiray sharaf iyo ciisi bay mudan yihiin maxaa loo xidhay Khadar Macalin ina makaahir wixii oo dhan dhamaantood maxaa ladar been la isku sheegay أنا وعدنا قندراس كمان رادين عدنا هنقولي كمان ربنا عدنا هنقولي كمان تاجرنا لكن وحويان وحلا السماير يا ما أنت وحوي السواق بسواق فشلن تاني كأنا لفت حكام المانت كأنا لف معي كهذا يدي وشعب كمان أنت بس بنيه كاس وديده يا غروك وديده يعني وكما سوق ما كرميه ما لو سوق ما كريه وحويان marka waxaweyaan dadkii shacabka ahaa ee la gumeeyay dadkii shacabka waa la gumeeyay xoolii baa ku dul dhamaaday dadkii baa dhamaaday cid u naxaysa ma jirto qaarna halkan ay u saabatmayeen kuleen garabka sixitaanka BB oo shalay toole in caljar markuu dalka iyo deegaanka boobayay soodiga dhex joogay maxaa jira u sii weyday maanta markaad leedahay BB garabka BB baan ahay waxaan samaynayaa sidan waxbaan saxayaa huuhaa beenbeen qiyaali kartoon filin kartoon waxaan marka ku shaqaysan shalay maxaa u sii weyday waaye Cabdullaahi Gasila wax saxaya oo ma waxa saxaya Mubaarak kii loo oranayay خضرة سولو محمدو وريو ما تخط مدرع عيقا مسوى يا فرعي بحاول سولو يمكن لو مقليا سولو وريو أدبار السلام يا سلاك بعد ولا ليال ديغاك النبي يدركني يسوي هاي وطوتين وحويا هدولا قرويا ديغاك يضدك dalkuba wuxuu u baahan yahay in leero dad hadduu ilaa guuroon yahay sida ay uga u xidhan yihiin u xidhnaada sharafkiisa iyo cilmigiisiyo iyo waxa weeyaan sarrayntiisaba maantadii markii dhaweyda soo qaadayay waa maantaar waan leehay oo waxa weeyaan hadduu ilaa guuroon yahay markaan leeyahay hadba doqon la keenaa doobiga u cugaya dabiir iyo shadulyo qof wayba waa fahmayaa أنا كدرين شخص جارة أما هدول كروياي أما وحوين حيد جر بريزنت جارة كدرين لكن زواج كوضع قف أين ضد دورن أدين لك يارو وحويان وح حمارية وحوركتنا وأول سحنابة دب حمارية وحويان دولة هذا الجوكتنا واحد تاجن تأور كلا سوى عريرها كلا كذب ساعات من هذا كيد الكوعي كلا سوى شيء وعوية تأثير وعي وعديرة تأثير وكلا بيرتاي وتبلا
arligii nabadda ahaa iyo hadduu ilaahay kuu roon yahay dhulkii nabadda ahaa ay u kala geysay dowladdani oo maanta ay sababtay abaartii waxaan u malaynayaa cabdi cumar wuxuu odhan jira qolka sagaalaad qofkii fura waxa weeyaan wax buu kala kulmayaa abaartan waa qolkii sagaalaad oo la furay horta waxaan leeyahay si fiican ku soco waxa weeyaan abaartan horta ilaahay baa keenay laakiinse qolkii sagaalaad la furay bay waxa weeyaan sabab u ahaa waxa weeyaan dad wanaagsan oo qalbi wanaagsan oo hadduu ilaahay kuu roon yahay nadiifa oo quraan akhrisa oo kitaabkooga iska roganaya oo siyaasad iyo reere iyo dhiig daataan ku jiray bay dowladdii hore joogtay dowladdan markay timidayna waxa weeyaan intaasa waxa weeyaan maxaydaa furtay dabadeedna dagaal iyo xabad iyo dhiig baa daatay waxaa ka dambeeya abaar iyo balabal iyo boyhoof iyo silic baa ka dambeynaya marka waxa weeyaan soomaalida waxay tiradaa caana daatay dabadood baa la qabtaa inaynu dhalinyarada soomaaliyeed haddaynu nahay ama maanta dadka waxa weeyaan wax bedeli kara waxa weeyaan maxay ahayday dhiigga nafta iyo waxa weeyaan maxay ahayday maalka la uuri karna deegaanka soomaalida waxa weeyaan waa innaka war 3 milyan oo tigraaya baa Itoobiya dhaqaaq kaga siiyey oo Abiy Ahmed maanta wadahadal iyo waan iyo waxa weeyaan maxay dowladnimadii oo dib loogu celiyo oo kala waxa weeyaan maxay uu kala hanweeyay inuu axmaara ku celiyo oo tigreeyu leeshiyo maanta raba marka waxa weeyaan Soomaali galbeeday waxa weeyaan waxay nagu tahay dilqaab bay nagu tahay in waxaan arkayaa nin xildhibaan oo leh war miyaana dowladda Itoobiya ka tirsanay maxaa abaaraha laynoogu maartay maxaa laynoogu soo gurmin waayay ra'iisul wasaarihi baa yimiday hadduu ilaahay kuu roon waxay yimiday madaxweynaha yimiday dadkan waxaan u marinaya weli hankoogu waa yaryahay Itoobiya sharci bay leedahay sharciga ay leedahay waxa weeyaan ninka waxa weeyaan maxay hayday xiniyo wax kaga dhaxsanay wax siisaa laakiin nin waxa weeyaan maxay masaakiina waxa weeyaan ilaahay bari baa la yiraahdaa ilaahay baa waxay ilaahay bari dowladnimo wax ma haysee that the point waxa weeyaan horta ninkii xildhibaanka taasaan leeyahay waxa weeyaan takalaatan u soo noqdo maxamedow walaal deegaanka iyo dadka iyo dalku waan ognahay maanta siyaasad xumo iyo waxa weeyaan maxay iyo xisbiyada xisbiga saxda ah waxa weeyaan maxay loo la keenay heshiiska la soo galay oo wanalaf la yiri waa deegaanku waa dalkiini waa dadkiini kaalaya ka tartama waxa weeyaan maxay codkiina ku soo baxa ayaa la yiri hadda markii dambe waxa weeyaan maxay waa urur argagixiso oo lagu kala gatay oo waxa weeyaan maxay hayday la kala burburiyay mid waliba markaa waxay mari dagay الله هذا مر لبادي دقة ساعة يستدقي وعويا أول لك مرة ديلا دقي إلى قوسة ما هنا وعويا إلى وحي هاي أصلا لك على يسو دقاك بداديسو ضلك بداديسو وادي دولتي ورا وحقبت كمارت في عيد دولتي ورا مارت اللي تقال بيستي هذا بحاول مصطفى وسؤال تويتين ترى من أكو قدرو نينك مانتا حبيس كما سيبوين كتشوغا wuxuu ahaa ninkii ugu dhaliisha badanaa xilligii cabdi uu madaxweynaha ahaa duurka ka soo caytamayey ee lahaabuu ahaa habar yare hadday kuftaba cabdi baa saan ku sameeyey hadduu gaari rogmada cabdi baa saan sameeyey ciidamadaa gumaaday ninka maanta kursiga ku dagaalamaya ee leh waa nin on elafo weeyaan ee maanta mataqaanaa xafiiska masiibooyinka fadhiya ee maanta maalintii dhaweyd marka BBC-da dadkii ay carruurtu iyo reeruhu ka dhammaadeen ee gaajada u dhinteen markii la weydiiyey ninkii yidhi gaajo umabay dhimanba dadka iyagu wax gaajo u dhintay maba jira ninkii yidhi ee daboole wuxuu ahaa ninkii shalay toole halgamaannimada sheeganaya weeyaan ayaa kursigiisa ku dabaqaya maxamed waxa weeyaan wala ninkaasi arunta oona waxaan ku aqaanay niman haddii la guraya qadiyadoodu ay kursi yar oo ama han yar oo maartay maxay gobol yar oo loo baan ku aqaanay nima waxaan ku aqaanay maartay maxay wax la dili kara wax la dayn kara ku aqaanay waxa weeyaan waxaan maleeyahay ninkaasi nimankii oona dhabarka ka toogtay oo buu qaybka ay kursi uu socday maanta markuu kursiga yeelayna waxa weeyaan maxay hayday hooyaday dheregsan ama hay dheregsan xaaskii caruurteedu dheregsan intaas iyo caruurtiisu dheregsan intaas meel kale u dhaafaa ma jirtaan u malaynayaa dowladda Mustafa abaarta bay
weeyaan in lagu tusaale qaato waxayda ilaahay hadduu ilaahay ku rooyahay bal cadaalad darrada jirta laga fogaado oo cadaalad la raadiyo laakiin dowladda haatan uma arka anigu inay cadaalad raadiyo iska daaye waxa weeyaan maanta inay waxa weeyaan maxayda ay ku gorgorto cidba nagama dhimanin waxa weeyaan waa waxay taas waxay caddayn midda kale madaxweynayaashii deegaanka soo maray okay taas waxay caddaynaysaa waxaana aad lahayn markaad waxa weeyaan maxayda ama aad maartay samaysan marka faktiisa ama shaqadiisa lagu dhibo oo lagu laado waxaana ku shaqaynaya oo aad lahayn oo maad garanaynin sharciyadiisa iyo systemka ku shaqaynaya aad garanaynin waxa weeyaan maskaxdaa kugu xanuunaysa waxa weeyaan maxay hayday waad ku daalaysaa waxa weeyaan markaa dadka Soomaaliyeed caburinta lagu hayo cagajiblinta lagu hayo waa magaaladii caasimadii dhan iska deegaankii kale caasimadii deegaanka waxa weeyaan maxay ay cadaalad ka bilaabmaysay justice ay ka bilaabmaysay justice centralka ahayd cadaaladda ay maartay guddiga u hayd baa waxa weeyaan maxay artillery iyo waxa weeyaan maxay tanks lagu dhex maraya waxa weeyaan taas waxay ku caddaynaysaa meesha ay taagan tahay nabad la'aantu waxa weeyaan maxay meesha ay taagan tahay in ciidankii kala soo ciidanka new police laga cabanayay ciidanka new police waxa loo burburiyay inay dadka iyo ummadda iyo deegaanka dhibaateynayaan maantana iyagii baa dhibaato bilaabay kuwii maanta dadka deegaanka u shaqeeyay geedka iyo ooda iyo wadooyinka u furi jiray shalay lahaa cadaalad darray samaynayaan maanta waxay midday kuwo maarta xabad waxaanay waxa weeyaan maxay uunan horumarkoogu hayn baa lagu bedelay kuwii wadooyinka jidadka sameynaya waryaa marka inaad waxa weeyaan waxa aynu u baahan nahay dad ka shaqeeya maskaxda oo waxa weeyaan maxay soo drive gareeya wixii aynu ahaan jirnay Soomaaliyadu ahaan jirnay sumcadda ku lahayd oo la iska daayo jufada iyo reerkan iyo geedkan nin walba maarta afarta ugu hoos fadhido la soo shiraya inaad